waxaa loola jeedaa wax kasta oo 5 jeer ka dheerayn kara xawaaraha codkiisa. 6174 kiiloomitir ayuu jarayaa saacadii. xawaaruhuna waa muhiim sababtoo ah wuxuu siinayaa cadowgaaga digniin iyo waqti aad u yar oo uu kaga falceliyo. maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa tartanka cusub ee hawada sare iyo gantaalaha hypersoniga. waa Xaaji Mubaarak oo idin leh ku soo dhawaada Hanaqaad Media. baadigoobka aan dhammaadka lahayn ee loogu jiro in dal walba uu helo hub siinaya gacan sarreynta ama ugu horeeyo cadowgiisa. haddaba nooc cusub oo hub ah ayaa soo ifbaxay. waa gantaalaha hypersonic ee aadka u dheereeya kaas oo bedeli kara bartilmaameedkiisa muddo kooban gudaheed beegsanna kara bagcad kasta oo dunida ku taala. gantaalahan cusub waxay ku yimaadaan laba qaab. nooca koowaad waa hypersonic glide vehicles HGVs, kuwaas oo ka baxaya oogada dhulka kuna wareegaya hawada sare si dhaqso ah iyagoo khalkhal gelinaya raadaarada cadowga. nooca labaad waa hypersonic ballistic missiles ama HCM, kaas oo ku duulaya jawi hoose sidoo kalena xawaare sare leh oo khalkhal gelinaya cadowga siinayana waqti aad u yar oo uu kaga falceliyo. caqabadaha ugu waaweyn ee ilaa hadda haysta soo saarka hubkan ayaa ah xawaarihiisa daran awgeed. wuxuu sameeyaa kulayl aad u xoogan 2200 oo digrii Celsius ama 3990 digrii Fahrenheit. arrinkaas oo caqabad ku keenaya isgaadhsiinta maadaama kulaylka aadka u daran uu sameeyo daruuro aad u culus oo ku wareegsan hareerahooda, taas oo loo yaqaan plasma. arrinkaas ayaa ku adag isgaadhsiinta iyo raadaarada in ay dhex galaan ama maamulkiisa faraha lagu hayo. 1 Oktoobar 2019 gawaadhida militariga ee sida gantaalaha hypersonic missiles ayaa qulqulaya fagaaraha Tiananmen ee magaalada Beijing caasimadda China intii lagu guda jiray sanad guuradii 70aad ee aasaaskii Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha. gawaadhida DF-17 hypersonic glide vehicles oo ay ku faanaan safafka cududda Shiinuhu. ruushka ayaa tijaabiyey gantaalkiisii Avenger, kaas oo u dhigma kan Shiinaha, waxaanu ku socdaa xawaare aan caadi ahayn 33,000 oo kiiloomitir saacadii. gantaalkan ayaa ku soo biiray safafka ciidanka bishii Disembar 2019. dhowr wadan oo kale ayaa baaraya tiknoolajiyadda. Hindiya ayaa ku mashquulsan gantaalkeeda BrahMos, iyadoo Faransiiska iyo Japan ay filayaan in ay ciidankooda ku hubeeyaan marka la gaadho 2022 ilaa 2026. wadamada Turkiga iyo Pakistan ayaa iyaguna aad ugu howlan xaqiijinta hubkan xawaaraha sarreeya ee hypersonic ballistic missiles. haddaba nidaamyada dayax-gacmeedyada iyo isgaadhsiinta oo muhiim u ah noloshan casriga ah iyo sida loo carqaladeeyo xilliyada dagaalka. Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay laan cusub oo ka tirsan militariga dalkiisa loona yaqaano Space Force. bilooyinkii u dambeeyay waxaa dayax-gacmeedyo aan cidna wadin loo dirayay howlgallo qarsoodi ah. nolosha shicibka iyo tan militarigu waxay ku sii durkayaan noocyada badan ee dayax-gacmeedyada, isgaadhsiinta goobta iyo gudbinta xogaha. quwadaha waaweyn ayaa baaraya siyaabo lagu kharibo ama looga takhaluso dayax-gacmeedyada iyo soo saarista anti-satellite weapon ama ASAT. inkastoo 5 wadan ilaa hadda ay ku guulaysteen tijaabooyinkoodii sida Maraykanka, Ruushka, China, Iiraan iyo Hindiya. Shiinuhu wuxuu leeyahay hub badan oo ASAT ah ama anti-satellite weapon oo u diyaar ah inuu ku indhatiro cadowgiisa khilaaf kasta oo dhici kara. sida hubka laysarka ah
ee dhulka yaalla oo loogu talagalay inuu burburiyo dayax-gacmeedyada ku wareegaya oogada sare ee dhulka. wakaaladda difaaca cilmi baadhista sare ee DARPA waxay wadaa soo saarista noocyo cusub ee X-37B oo duuli kara isla markaana fulin kara 10 hawlgal maalmo gudahood. arrinkaas oo si weyn hoos ugu dhigi doona wakhtiga iyo kharashka hawada sare. ruushka sidoo kale wuxuu leeyahay dayax-gacmeed u gaar ah oo uu sheegay in uu u adeegsado hagaajinta iyo dayactirka dayax-gacmeedyada duugga ah ee ku sugan hawada sare. laakiin sida uu sheegay taliska hawada sare ee Mareykanku waxay xaqiijiyeen dayax-gacmeedyada cusub ee ruushku in uu in badan u qaaday safarro aan caadi ahayn oo aad ugu dhawaaday dayax-gacmeedyada Mareykanka.